Assalaamu calaykum waa Dr. Moodi Kuturo dhammaantiin baa idin salaamaya. Markana halkii waxaan kasii wadi doonaa casharadii pathology gaar ahaana waxaan ku jirnay chapterkii genetics-kee bal aynu hore ugu soconno. Casharkan waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yidhaahdo glycogen storage disease ama xanuunada saameeya metabolism-ka baan idhaahno glycogen oo ah sidii glucose looga sameyn lahaa glycogen oo loo safe gareyn lahaa ama loo kaydsan lahaa ama sidii kaydka oo glycogen loo jajabin lahaa oo glucose looga dhigi lahaa. Marka metabolism-kaasa jira oo qofka alla u sameeyey khalkhalka ku yimaada kaas oo lagu dhasho waa xanuunada keenay ka hadlayna. Marka ilaa 6 xanuun baynu marka halkan kusoo qaadanaynaa aan kusoo wada koobi doono. Marka aynu ku bilowno hada si aad u fahantaan oo aynu ugu fududaato waxa aynu gelaynaa marka wax loo yaqaano glycogen metabolism pathways ama wadooyinka loo maro glycogen isticmaalkeeda hadday tahay sameynteeda iyo hadday tahay burburinteeda glucose ka samaysan shay sonkorta laga samaysanayo. Marka waa sababta Soomaaliga dhigno waa sonkorta kaydsan sida loo sameeyo beerka uu kaydsanaya ama maaragtay muruqyada iyo sida taa kaydsan loo jajabiyo marka loo baahdo ee looga dhigo dhiig gasha sidaana xubnaha jirku ama unugyada jirka u adeegsadaan. Marka aan ku bilowno haddii aynu dhankan ka bilowno glucose ba marka la hayo si tamar looga sameeyo waxa la mariyaa hormone la yiraahdo baa jira glucokinase baa la yiraahdaa ama hexokinase la yiraahdaa. Marka glucose taas waxa loo bedelayaa marka wax loo yaqaano glucose 6 phosphate taas marka loo bedelana waxa la sii maray waa marka tamar laga sameynayo waxa la yiraahdo glucose 6 phosphatase. Marka waa tii glucose 6 phosphate ka burburinaysa wiilasha glucose marka ku noqonaysa iyo maaragtay tamar halba meesha ka baxaya saa daraadeedna waxa tamar baa laga sameynaya. Marka waa taas haddaba in ku socon labadan nidaam marka hore waxaan gelaynaa nidaamka glucose haddaba aan haysano loogu sameynayo loo kaydsanayo glycogen looga dhigay hadhow bin ku soo celinaynaa glucose marka wadada labaad. Marka wadadan koowaad saynu soo koobno waxa iyadana loo sii bedelay glucose 6 phosphate ka lafteeda marka la rabo in la kaydiyo ama la rabo in la burburiyo waxa loo bedelayaa glucose 1 phosphate iyo bedelaya waxa uu bedelayaa enzyme-ka loo yaqaano phosphoglucomutase taas marka ay dhaafto way sii soconaysaa waxa ay sii noqonaysaa iyadoo la adeegsanayo UDT wax la dhahdo. Marka cala kulli xal waxay noqonaysaa maxay uridine diphosphoglucose. Halka marka ay maraysana waxa marka waa enzyme-ka muhiimka meeshan ka ah laba muhiim ah marka la sameynayo tanin glycogen waa glucogen synthase kala dhado marka la burburinayo waa phosphorylase marka sax waynu ma doona. Marka maxaa dhacaya marka waxa ka qayb qaadanaya glucogen synthase oo glucogen waa tii synthase loo sameeyo baan qoran waa kii sameeyay ACE-kaas waa enzyme sameeyay haddaba halka marka ay marayso waxa samaysma glycogen oo taxan istaba taxan marka istaba taxan isku xidhanto line dheer bay noqonaysaa marka ma fiicna waxa loo baahan yahay si ay u qabsato maaragtay baasha fara badan la sameynaya aanay u qabsan meel weyn ay waxa la sameeyaa branching baa lagu sameynaya. Branching maxay ka dhigantay tusaale ka dhigantay haddii geedku caleemihiisa brancheskiisa oo dhan tusaale ilaahay idinku isku dabaqa qabsami lahaa soo samada ma koreen wixii halka marayaan geedka waa dib ku noqonaysa haddii aanu intu kala baxo calaama yeelan oo sida maaragtay u kala bixino geed hadhaco la harsado wax ma garanaysa midhana dhaliya noqon saas ku noqda midho badi laakiin hadduu saa intuu soogsamo laamba laan ka sii dul korto sida maaragtay geedka la yiraahdo
xiga bay yidhaahdaan kaasag laftiisu laamu sameeyaa ama geedad badan waa jira adigu sare u baxa laakiin badankooda dee laama waa sameynayaan. Markaas aynu kusoo noqonay si haddaba ay glycogentaas la isku xidhay aanay mid daba taxaan u noqon oon beerkana dhibaato u geysan ayaa waxaa jira enzyme la yidhaahdo branching enzyme oo kuwan iman xanuunada ku dhacayaan. Enzymekaas wuxuu ka sameynayaa iyagu isku xidhaya taas laam wuxuu sameynayaa glycogenadaas la sameynaya uu isku xidhaya marka mid badan oo kaydsan isku xidhka ayaa branch lagu bixiyo waa kii sameynayay laamayntii wey oo hareerus ka qabanaya saas isugu soo xidhaya marka wada si glycogen fara badan ay u qabsato xad yar oo kooban wey right xanto de waa daba form noqon saasa marka ay ku sameysmaysaa glycogen oo ah mid branching ah oo hadhow tuli waa la jijibinayaayo kan branching ka la yiraahdo enzyme ka weyn ugu iman doonaa kaasa jijibinaya marka waa taasoo glycogen saas ay noogu samaysan intaas process kaasa loo maray marka meeshan waxa ku jirta iyadana oo qaybta regulation ka qayb qaadanaysa marka halkan marayno kuma qoran halkan laakiin waa baasha la yiraahdo insulin la'aan glucose lama kaydsan karayo marka wadaas wada ka qayb qaadata in waxay marka iyadu activation ay ku sameynaysaa glycogen synthase wey kan sheegini asaankan ku qoray ka kale ee phosphorylase-kana way xiraysaa marka labadaas weeye maaragtay asaan iyo buluuga green cagaarkan ku kala qoray haddaba phosphorylase-ka isaga haddaba si aan u nimaadno glycogen haddana aan glucose uga samaysano yaa isaga dhiirigeliya laba waxa weeyaan phosphorylase kinase-kaas isagu wuu activate garanayaa waxa se kale ka qayb qaata activate garankiisa hormoonka la yidhaahdo glucagon oo marka ay hoos u dhacdo glucose tusaale dhankan aan kusoo noqono marka glycogen synthase waa naga insulin bas kor u qaadaysa sooma activate garanaysa maxay waad activate garanaysaa waa glucose-ta jidhka ku jirta markay farabadato waxaa la soo deynayaa cunto kale insulin baa la soo daaya insulinta la soo deynaya maxay sameynaysaa mid waxay u furaysaa dhankii unugyada u furtaa unugyada si ay u qaataan glucose waa furahaas dhanka kalena inta kale soo hadhay bay waxay ka dhigaysaa waa la kaydsanayaayo waxa weeyaan waa gabadh wanaagsan oo kale cuntadii muqmad meel ku dhigay ku kaydinaysa ilaahay marka adigu wasaas fahantaanuni taasi waa taas dhankan kalena waxa imanaysa glucagon iyadoo gormay la soo daaya waxa la soo daaya marka qofku gaajoodo ay hoos u dhacdana maaragtay sonkortii jidhku dhiigu glucagon marka ganaca laga soo daayay sidan labadaba ganac baa laga soo deynayaa ayaa waxay sameynaysaa waxay ka qayb qaadataa burburinta glycogen sidoo kale waxa ka qayb qaata waxa loo yaqaano epinephrine iyo norepinephrine labaduba way ka qayb qaadanayaano oo marka tusaale haddii qof isagoo israado orodoo kale ama maartay bahal oo arko kale waxa la soo daayay hormoonadaas oo kale si uu cararo tamarna u samaysto saadaraadid kuwaasna saasay uga qayb qaadanayaan burburinta glycogen loogu sameynayo glucose marka aan ku socono marka waxay markaa kor u qaadeen kuwaas oo dhan phosphorylase-kaas kaas hadduu kor u qaado maxaa dhacaya waxaa la burburinayaa glycogen haddaba ha la burburiye waynagii hore kasoo sheekeynay dib nidhi waa branching bay samaysmaysaa moogti way isqa qabsanaysaa si markaa kuwa loo sii burburiyo waxa la adeegsadaa enzyme loo yaqaano idahidamkii debranching enzyme waa enzymekii laamaha gogoynayay baan idhaahno laama gogoyi weeye waa laamihii ay ka samaysnayd dee glucose isku xidhantay glycogen noqotay wey saasaa markaa waa lasoo suqaaraynayaa baasha waa lasoo yaryaraynayaa sida markaa glucose ku noqonaysa jidhka ku geli karaysa marka waa markay glucagon tahay weynta wanagan la waa geedkaa samaysmay
marka waa la soo yareeyay laan iyo calaamad loogu soo gooyo loo adeegsado ee glucose ba markaa noqonaysa calaamadeynti saasa loogu yaqaan enzymeka D branching enzyme oo glucose saas ku noqonaysa si hadana marka looga sameeyo tamar waxa nidaamkii maraysa glucose 6 phosphate waxa hadana imanaya glucose 6 phosphatase kii burburinayay saasa marka loo adeegsanay marka taasina waa taas oo intaas waxa ay noga noqonaysa waa guud mar weeye waxa rajaynaa intaynad fahan guud ka qaadateen sidoo kale iyaguna marka waxa ka qayb qaadanaya lysosomyada marka gaar ahaan lysosomka kan la yiraahdo lysosome acid maltase isaguna wuxuu ka qayb qaataa burburinta glycogenka ee glucose loo sameeyo marka isagana waan u gelinaa cilad baa jirta halkaas oo ku timaada xanuun marka anuguna xanuunada marka mar hada inta ila fahanteen xanuunada iyagu way iska sahlanaanayaan marka aynu marka ku bilowna waxa jira xanuun la yiraahdo von Gerk disease marka von Gerk disease oo maxaad waxa weeyaan xanuun la dhaxlayo oo ay dhibaato ku imanaysa ama hoos u dhacayo waxa loo yaqaan glucose 6 phosphatase ka soo sheekeynay glucose tade si tamar looga sameeyo dil burburinay ayaa deficiency ku imanaysa marka xanuunada oo dhan ka sheekeynayno oo dhan qaarkood waxay noqon karaan qaar kooban oo meel qaar ku kooban qaarkood waxay noqon karaan kuwa maaragtay systemic jirka wada saameeyo marka kan wuxuu marka noqonaya marka ciladaha ku imanaya qofkan waxa weeye wuxuu ku imanaya hepatomegaly ba qof ku imanaysa oo glucose lafteedii baa hay'aday la burburin bakari leeyahay marka meesha glucose fara badan ku haraysa waxay imanaysa sidoo kale hoos waxa u dhacaysa qofkii sokortiisi marka hypoglycemia imanaysa maadaama glucose la burburin karayn waxa imanaysa hyperlipidemia ayadana ku imanaysa oo qofkii waxa ku dhismaya maadaama glucose la burburin kari laayay tamar laga sameeysan kari laayay waxa ku imanaya inay isu bedesho maxay loo bedelay lipid ba marka ku badanaya oo loo yaqaan hyperlipidemia oo waxa meesha badanaya waxa loo oran jiray LDL marka aynu ku soconno waxa imanaya markaas oo kale hyperuricemia iyadana meesha ku imanaysa qofkii waxaan xanuunkan badanaa yahay waxa weeyaan qof inta badan waxa hoos u dhacaysa qofkan inta badan koritaanka sidoo kale dhibaato ka imanaysa iyada kale aynu iman doono kale isaga laftiisa marka kan waxa loo yaqaanaa Maxamed waxa la yiraahdaa waa nooca koowaad sababtan sabab uga bilaabayo waxa la glycogen storage disease type 1 weeyaan aynu marka ku soconno type 2 waxa weeyaan kan la yiraahdo Pompe disease barada waxa la yiraahdaa sabab marka wuxuu noqonayaa maxay waa glycogen storage type 2 marka saasan daba dhigay saad oo kala xasuusatan marka tuuga Pompe disease oo maxaa marka saad dhibaatada Pompe disease waxay ka imanaysaa lysosome ka soo sheegnay lysosome acid maltase hadii cilad ku timaado ama deficiency jiro waxa imanaysa isagana qofka glucose samaysankiisa ay dhibaato ka imanaysa waxaana qofka inta badan qofka xanuunkan lagu arkaa dhanka wadnaha xanuun dhanka wadnaha sidoo kale cardiomegaly waa wadnaha weynaanay sidoo kale muscle hypotonia sidoo kale waxa ku iman kara waxa la wax badanaa xaalad kuga timaada ama talax gabayo wadnaha iyo sanbabada waa cardiac respiratory failure ba ku iman laba sano gudahood marka bombana waa kaas hadii uu galoyn hadii bombaha ka nimaado sida bomb hadaad aragtid waxaad ku xasuusan kartaa wadnaha soo bomb ku xasuuso aynu marka u nimaadno ka saddexaad oo isaga la yiraahdo cori disease ba isaga la yiraahdaa cori disease oo aduguna maxaa tahay cori disease waxay sida arkaysaan xidhiidh leeyihiin labaduba glucose sameyn Soomaa waxa jireen kan halkan D branching enzyme ka ayaa deficiency ku imanaya muxuu marka dhacay glucose tiba marka hoos u dhacaysa hadii glucose hoos u dhacdo waxa soo hoos u dhacaysa glucose 6 phosphate taasina waxay sameynaysaa dislef von Gerk disease baa meesha iman kara soo kale ismid noqonaya marka calaamadaha kale waa ka wada siman yihiin
oo isagana waxay ahaday hypoglycemiadaas isaguna leeyahay oo qofkana waxa ku imanaya badanaa xagga koritaanka ayay dhibaato kaga imanaysaa dee glucose waatan dee lalaayay qofka ku koriyey amaba aad dee ku samaysan lahaa tamar marka waa kaas korigana waxaad ku xasuusan kartaa af Soomaali dee ereyga koriso ma jirto kori waa dee ficil amar marka waxaa jirtay hees ay qaadi jirtay Saada Cali aan filayo oo oran jirtay allo koriyo koriyo makhluuqoo dhan koriyo allo ubadka noo koriyo marka kori allo ubadka noo kori korigaa ku xasuusan markaa taasina waa taas waa cilada iyaduna ku imanaysaas waa deep branching marka deep branching waa ku yar noqon waxa maxay dee waa burburintii lasoo burburin lahaa glycogen-ta glucose laga dhigi lahaa weeyaan enzymkii ka qayb qaadanaya meesha ka baxsan saasaan glucose loo helayn marka waa kaas aan ku soconno kan la yidhaahdo aynu nimaadna ka afaraad waa nooca afaraad marka kani kori wuxuu ahaa type 3 wey type 4 oo glycogen storage disease ka la dhaho waa ka loo yaqaana Andersen disease marka maxaa isaga dhibaato ku imanaysa waxay ku imanaysaa enzymkan kasoo sheekeynayna ahaa branching waa kii sameynayeyba glycogen marka la sameynayo si fiican isugu xidhaya laamaha u sameynayay isku xidhma sidii wadanaha lana dee jiridna wadale laamana ka samaysan fara badan ay ka samaysan tahay dee ay say qaadka u helo beerku meel ay ku kaydsamaan waa xeragelintii way kii u sameynayay weeyaan markaa ama qoolid badhow dawo kaaba dad xag garanayso dhanka miiga dad xoogaa tagtay qoolka waxa jirta xera maqasha waxa la waa qool baa la geliya waxa kan inta xadhkaha isugu xidhan laakiin waxaraha haday tahay ama naylaha haday tahay yaryar qoorta loo geliya taas ay isu wada barbar taageen marka kasta qool waxay leedahay aan ku qabtay adna qoolka gelibid oo Soomaaliyeed jirta marka qoolkaas la geliyo waa qool gelgelinta ama wax noqonaysa adigu waa branching enzymka branching inuu sameeyay sameeshu qaado marka waa kaas marka dhibaato ka imanaysa oo dee glycogen ba samaysankiisa marka storage-keeda marka adkaanaysaba maxaa marka dhacaya dee waxa dhacaya waxa la yiraahdo deposition of abnormal glycogen aan caadi ahayn dee laamaysanka samaysmaysa midaan ahayn oo saa u dheer baa imanaysa dee beerkaba qabsanaysa oo dhibaato keenaysa marka wax ku keeni kartaa taas meelaha xilliyo xubno badan bay ku keeni kartaa jirka dhibaato sida beerka maskaxda wadnaha iyo skeletal muscle muscle muruqyada aynu ku tamarin ku socono kuwaas la yiraahdaa marka waa kaasna waa Andersen kuna waa kaas haddaynu kusoo gabagabayno labadan iyada kale waxaa loo yaqaanaa McArdle syndrome xanuunka la yiraahdo kusoo gabagabna ka shanaada waa type 5 syndrome-kaas wuxuu isagu dhibaato ka imanaysaa waxa loo yaqaano phosphorylase waa kii ka qayb qaadanayayba burburinta glycogen wixii imkaan soo marin iyadu waxay badan ahayd walow marka dee kuwan kale ay lafteeda imanaysay marka deep branching kale laga reebo laakiin kuwa kale waxay ahayd samayntii marka waa taas xakan waa maxay waa burburintii glycogen-ta oo waxa division ku imanaya phosphorylase kii ugu weynaa ka qayb qaadanaya burburintiisa marka waana dhanka kan wuxuu noqonayaa marka waa muruqyada dhanka muruqyada badanaa kan yahay oo wuxuu qofku ku imanaya muscle crumbling baa ku imanaya marka waxaan imaadaa gaar ahaan marka qofku hawl israada qabo ama orod ama wax qabtaba qofku muruqyadiisiiba maartay waxba ka samayn karinba glycogen glucose u rogi karaya saas ku imanaya myoglobinuria iyadana ku imanaysa sidoo kale hypoglycemia iyadana ku imanaysa hoos buu dhacaysaa kan kale aynu sii galan waxaa jirta isagana xanuun kale jirta isagana phosphorylase dhibaato ka imanayso oo hoos u dhacayo oo la yiraahdo Hers disease marka
laakiin kani waa dhanka wuxuu maaragtay dhibaatadu ka imanaysa dhanka beerka. Marka emta hore waxaad ku xasuusan kartaa muruqyada, heerkanna waa hepatitis ku xasuuso waa dhanka iyo sanbabka hepatitis taas waa xanuunkii laakiin beerka laftiisa magacaasu leeyahay. Marka waa hepatitis wey. Okay, aynu ku socono. Xanuunkan secondary hepatitis muxuu leeyahay? Wuxuu qofku yeelanayaa waxa weynaanaya maxay beerka iyo beer weynaad buu yeelanaya, waa hepatomegaly. Sababtu waa maxay? Glycogen waa la kaydi, si loo keydinaya dee meesha waa lagu tusayo, dee waad garanaysaa meesha maaragtay jawaan haddii yaa sonkor lagu tuso siduu noqonayo. Marka waa kaas dhibaatada badanaa kan u keenaana waxa weeyaan dhibaatadaas dhanka xagga beerka ah. Marka waa taas halkaas maaragtay kusoo koobaynaa. Waxaan rajeynayaa muhiimadu waa fahanka, wixii dambe waad raadsan kartaa, xanuun kasta faahfaahintan aan ka sheegay ka badan ilaa daweyntii waa raadin kartaa. Intan waa pathology waxa weeyaan meeshan waxay ka yimaadeen inaad qof si fiican u fahmo wey. Ayaan halkan dee cashiradan ugu jirnaa nimka Ilaahay. Marka waxaan rajeynaya inaad fahanteen. Dee wixii kalena maaragtay wixii dheeraada kalena waa sii raadsan kartaa marka. Hadii marka loo galo xanuunada kale dee qayb kasta gaarkeeda haday tahay beerka, haday tahay kelyaha, haday tahay muruqyada marka aynu marayno kuwaas waa qayb ugu imanaya hada laftooda waa dib loo geli karaa kuwa badan oo kamid. Marka halkaasaan kusoo koobayaa beriyahan sida arkaysaan casharadii waa yar habsaamayaan kole rabadaanta saameynteeda iskale. Waxaan rajeynaynaa inaan maaragtay insha Allah marnaba inaan kule joojin, intii aan sii wadi karnaa waa sii wadana insha Allah. La socod wanaagsan mar walba lana sii wadaaga wax ka fahanteen dadka kale ama ardayda kale jeclaan ayaguna inay ka faa'iidaystaan casharadan. Wassalaamu calaykum.